Assalaamu calaykum. Tirada 11 cilmiga tirooyinka sixirka. Tirada 11 12 13 waxaa loo yaqaanaa tirooyinka hogaaminta. Sidaas darteed 11 waxa ugu horeeya tirooyinka hogaaminta. Waxaa kula wadaagaya tirada 11 iyo saameynta qarsoon ay ku leedahay nolosheena. 1 sanad tirsigii ilbaxnimadii hore Maalin waxa uu dhamaaday 22 Disembar sanadii 2012 saacadu markay ku beegnayd 11 iyo 11 daqiiqo. Waxaan u malaynayaa in aad xasuusatid xilligan warbaahinta badankeedu waxay ka hadlaysay dhamaadka adduunyada. 2 11 maalmood ayaa laga tirtiray sanad tirsiyeedka Qarsoonka markii ay boqortooyooyin iyo dawlado qaar kood u bedelayeen kalandarkaasi. Tusaale, boqortooyada Ingiriiska ayaa 2 Septeber 1752 ugu bedelatay 14 Septeber 1752. Waxaa la baabiyay gabi ahaanba 11 maalmood oo ka maqan kalandarka. Haddaad xasuusato, Nelson Mandela ayaa xabsiga laga sii daayay 11 February 1990 kadib markii uu xirnaa muddo dhan 27 sano. Waxa uu noqday madaxweynihii 11aad ee Koonfur Afrika sanadkii 1994. Apollo 11 ayaa noqotay diyaarad cireedkii ugu horeeyay ee caga dhigata dayaxa. Waa sida ay sheegeen sanadii 1969. madaxweynihii Mareykanka ee xilligaas Nixon ayaa sameeyay wicitaankii telefoon ee ugu dheeraa abid ee ay bini'aadamku kula hadlaan meel ka baxsan dhulka. Waa sida ay naga dhaadhiciyeen isagoo telefoon ama landline kula hadlay cirbixiyeeno dul saarnaa dayaxa dushiisa. ciyaaraha ugu caansan adduunka ee kubadda cagta iyo kuwa kale la mid ahba ayaa lagu galaa garoonka 11 ciyaaryahan koox walba. kooxahan taageeridooda ayaa laga helaa xaraarad ama sarqad aad u heerkeedu u sareeyo, heer uu qofku mararka qaar u huro naftiisa, waqtigiisa iyo maalkiisaba. Martin Luther ayaa la baptisgareeyay 11 bishii 11aad kadib magaciisana laga dhigay Saint Martin. New York ayaa noqotay gobolka 11aad ee ku biira goboladii midoobay ee Mareykanka. magaca New York City waxa uu ka kooban yahay haddaad tiriso 11 xaraf. waa magaalada lagu kala qaato amarada caalamka, tusaalena u ah dunida casriga ah. halka ay ku taalo taalada xorriyadda ee New York City waxaa ku wareegsan derbi xidigeed oo leh 11 geesood. 11 September 2001 daartii waqooyi ee dhismayaashii mataanaha ahaa ee ganacsiga adduunka waxaa lagu burburiyay diyaaradii American Airlines duulimaadkeedii 11aad. daarihii mataanaha ee ganacsiga adduunka waa iyaga inta aan la burburin waxay ahaayeen laba dhismo oo isku xiga, muuqaal ahaana sameynaya 11 September 11keedii waxay ku aadan tahay maalintii 240aad ee sanadka. haddii aad tiro ahaan u kala bixisid oo aad isku geysid 2 loo geeyay 5 loo geeyay 4 waxay la mid noqon doontaa 11. maalinta 11aad ee September dhammaadka sanadka waxaa ka dhiman 111 maalin. 1 loo geeyay 1 loo geeyay 1 waxay u kala baxaysaa 3. waxay la mid tahay 3 tiro run ah, 3 xagal ah. waa sida ku jirtay tiradii number 3 ee barnaamijkii hore aan kaga soo hadalnay. dhacdadii September 11keedii waxaa loo qoraa 9.11 kadib waxaa lagu dhawaaqay dagaal loogu yeedhay War on Terror. waxa uu ka kooban yahay 11 xaraf. magaca dagaalka loogu magac daray madaxweynihii xilliga waxaa lagu magacaabi jiray George W. Bush. waa 11 xaraf. haddii aad ku fikiraysid waxaa laga soo gaabiyay W. Walker, aan ku weydiiyo maxaa magaca William Henry Gates 3 loogu bedelay Bill Gates 9 oo looga dhigi waayay William H. Gates. wadankii ugu horeeyay ee la weeraray waxa uu noqday Afghanistan. waxa ka kooban yahay tiro ahaan haddaad tirisid 11 xaraf. waxay noqotay maalintan maalin caan ah oo dhiig badan oo dad aan waxba galabsan lagu daadiyay dhulkan. waxayna fure u noqotay qulqulka dhiig kale oo aan xad lahayn oo u badan dad muslimiin ah in lagu daadiyo magaca 911. waa September 11keedii waa qaraxii mataane. haddii aad xisaab ahaan u kala saartid kadibna isku dartid 911 September 11keedii waxay kuu soo baxaysaa 9 loo geeyay 1 loo geeyay 1 waa 11. duulimaadkii tiro 11aad waxa saarnaa 65 qof. haddii aad xisaab ahaan u kala saartid kadibna isku dartid 5 loo geeyay 6 waxaa la mid ah 11. duulimaadka kale ee lagu burburiyay daartii kale waxaa saarnaa 92 qof. haddii aad xisaab ahaan u kala saartid oo aad isku dartid waa 9 loo geeyay 2 waxay la mid tahay 11. Maxamed Atta u fiirso. Maxamed Atta waxa uu magaca xilligaas aad u qabsaday warbaahinta caalamka
caanan noqday magac ahaan waxa uu ka kooban yahay 11 xaraf dib maanta waad uga baari kartaa aaladaha unugii ugu caansanaa ee argagixisada waxaa noqday Hamburg cell waxa uuna ka kooban yahay 11 xaraf labada daarood waxay ahaayeen min 110 biyaano waxayna gebigoodaba ku burbureen muddo 1 saac iyo 40 daqiiqo tira ahaan aan u bedelno waa 60 oo saacadiiba 60 daqiiqo ka kooban tahay loo geeyay 40 daqiiqo loo geeyay 1 daqiiqo oo la mid ah 6 loo geeyay 4 loo geeyay 1 waa 11 eberada ka tag sidoo kale tirada eber waxaad ka saartaa 110 biyaano ay ahayd Soomaa 110ka eberka ka saar waxa ku soo haray 11 biyaano waxana ku soo baxaya tirada 11 laba tirooyinka waxa loo isticmaalaa siyaabo kala duwan si fariimaha la rabo in ay gudbiyaan u hirgashana waxa la isticmaalaa noocyo kala duwan tusaale 11 waa si furfuri karnaa inagoo isku darayna hal loo geeyay hal inay la mid tahay labo labana ay la mid tahay hal loo geeyay hal tanna waa mid dadka jiha wareeriso tira ahaan sida haddii aad 5 farood ee gacantaada 2 far ka mid ah aad furtid laabtidna saddexda kale waxaad haysataa 2 tiro oo marna qofku uu fahmi karo tirada lambar 2 marna uu fahmi karo 11 isticmaal tirooyinka faraha gacanta ah ayaa kuwo muhiim ah waxayna ku xiran yihiin habka la isula fahmo ama fariimaha la rabo in si dadban loogu gudbiyo waxayna samayn karaan tirooyinka sida 11 22 33 dagaalkii koowaad ee adduunka waxa uu dhamaaday 11kii bishii 11 saacadu markii ay ahayd 11kii habeenimo dabcan waqtigaasi uu iskaga aaday soo maahan cidina ma diyaarin soo maaha kadib markii lagu baabiyay ummad badan oo aan dambi gelin dawlado loo arkayay halis lagu kala furfuray si loo fuliyo qorshayaal diyaarsana kadib weerarkii daarahaas iyo weeraradii ka dambeeyay oo dhan ee loo xagliyay diinta islaamka inay ka dambeysay waxa aad loo adeegsaday Allah baa weyn oo luqadda Ingiriiska ku qoran oo ay warbaahinta adduunka ku celcelisay si dadka markay maqlaan cabsi iyo argagax ay u dareemaan waxaana u qornaa si isku mid ah Allahu Akbar waxa uu ka kooban yahay 11 xaraf qasab ma ahan in uu dhawaaqa xarfaha sidan loo qoro laakiin sidan ku sheegayba intradu waa halis wargeysyada iyo warbaahinta waxay adeegsadeen xarfaha tiradoodu noqonayso 11 halka haddii isla Allahu Akbar luqada kale aad ku dhahdid cidibadani ka galeyn ama ayna dareemin cabsi iyo argagax dabcan sida iyagu u qoreen 11 ugu qoreen waxa weeye Allahu Akbar marka English loo qoro haddaad u fiirsato ereyga Allahu Akbar 11kii Septeber ka horna waxa uu ahaa mid aan wax cabsi ah dadka ku hayn marka laga reebo tiro aad iyo aad u kooban oo shayaadiin u badan dadka waxa laga fogeeyay ama laga cabsi geliyay ku dhawaaqista iyo maqalka ereygan micnaha weyn ku fadhiya oo si maalinle ah loogu dhawaaqo tiro aan xadidnayn oo cidiba ma ogaan karto aan ka ahayn Allah subhanahu wa ta'ala waxaan kula wadaagay 22 qodob haddii aad tirsanaysay qodobka 23aad bishii 11aad 2011kii waxaa la weeraray xafiiska wargeyska Charlie Hebdo ee Paris kadib markuu daabacay ama maqaalkiisii Charlie Hebdo 11 weerarka waxaa loogu geystay bambooyin dab ah waa fire bombing 11 dabcan saad aaminsan tahay cid isku aadisay ma jirto oo maalinba mid uunba iska dhacay weerarkan bambooyinka dabka ah loo adeegsaday warbaahinta guud ahaana hal si uunbay isugu wada aaday oo cidina uma diyaarin waa waxa la rabo in ay dadku iska qaataan oo ayna su'aal iskaga soo celin waa maanka fikiraya ee 24 haddii aad dhahdid waa sii baarayaa dhibaatada lagu geystay tirada 11 taariikhdan dhow ee ama ugu yaraan 1200 sano u dambeysay waxaad ogaanaysaa in ay ku lug leeyahay gacan ku raaxaysata daadinta dhiigga dadka aan waxba galabsan si ay uga gaaraan ujeedada foosha xun ee rabaan in ay u fusho maadaama aan faahfaahin badan ka siiyay tirada 11 ee qosaysa 11ka September waxaan kugu soo gabagabeynayaa tiro qaabka loo adeegsaday ka yaabi doonta waa dabcan tirada 19 qof ee la tilmaamay in ay wadeen 3 diyaaradood ee lagu duqeeyay dhismayaashii xarumaha ganacsiga adduunka iyo xarunta gaashaandhigga Mareykanka